السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa luubaanta. waxawaaye luubaanta faa'iidooyin badan ayay leedahay. subaxdii markaad soo kacdo hadaad luubaan guriga ku shidato waxay u fiican tahay neefsiga sanbabada, inkastoo cudurkani koroonaha uu ku badan yahay caalamka. luubaanta meesha uunsi ka shidan lahayd luubaanta inaad shidato ayaa ka muhiimsan. luubaanta dawooyin badan ayay leedahay. neefta dadka qabo kale hadday ku neefsadaan subax walbo, haddii dadka afka yiridka ka qabo kale hadday rugaan oo maxaa la yiraahdaa way u fiican tahay. waa antibiotic oo kaleeto, antioxidant-na way tahay oo wasaqda ay jirka ka tuurtaa. waxay kaloo faa'iido u leedahay allergy-ga iyo maxaa la yiraahdaa bronchitis-ka burkiitada. guriga subaxdii ama habeenkii hadaa ku shidato qiiqeeda faa'iidadaasi ayuu leeyahay. dadka afka iyo caloosha ka xanuunsanno dawo ayay u tahay. luubaanta dadkeena Soomaalida muddo badan ayaan isticmaalayna wayna noo baxdaa. maanta anaga badanaa waxaan ka dhaxalnay Yemanta oo dhanka Yemen ayay nooga imaatay, waana beeranay. laakiin markii Soomaaliya dhulkeeda lagu beeray luubaanta nooc kale ayay noqotay, way weynaatay, wayna dawadeedana way badatay. markii Soomaaliya la dhihi jiray the land of both, dhulkii uduga, luubaantan ayaa noogu magac daray. waxayna u fiican tahay caburka, bronchitis-ka, neefta, in aad ku neefsato aad ay u fiican tahay. hadda waa la hormaray ayadoo saliid ah ayaa nagala gadaa. saliidda xataa vibrator-ka ayaad ku shubanaysaa. waa mahadsantihiin.